qabiilku ideology buu leeyahay kooban oo ah unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma tol intaasaa lagu yihi tolnimadu wax fiican way leedahay oo sharcigu ina faray oo ah in laysu gargaaro xaqa laysu sheego allahuma salli calaa maxamed layskaalmeeyo takaaful ijtimaaciya reerku ninkii guursanaya la kaalmeeyo ninkii dayn lagu yeesho haddii wax laga bixin kara laga bixiyo qayb fiican way leedahay qabiil markaynu idhaahno laakiin tacasubka qabaliga ahi waa reerkayga bes erya gardarraba reerka xaq iyo baadilba reerka taa macnaheedu waxa weeyaan dee ummad ma noqon kartid oo sababta keentay markaasi inaynu burburro sababta keentay baan odhan karaa marka imika la yidhahda dawlad soomaaliyeed ha la sameeyo dee dadku dhibtii wuu wada arko wuu aqbalaya oo arrin hashiriyo ha laysugu yimaado dad badan baa isu imanaya haddana dawlad noqon mayso maxaa xaggee wax iska dhaafsan yihin يعني 15 16 شهر 17 شهر bay Soomaali gashay mid kasta waxba lagu soo dhisay wixii haddana socon maayo waayo de marka hore in waxaynu sugaynaa yaa meesha sariya inta xoogan qabsanaya nin waliba marka hore wuxuu silay lagama xoog badna kuday inay idinku heshaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada ama intan laakiin markay intii heshay soo baxdo intaan helin waxay leedahay caga qaba hadaba tan iyo inuu ku kicin reer walba xoogsanaya haday tan qabsatay yay talaabsanin waa in la dumiyaa inta markaa hungurigu inagu jirana waynu midaysanay ila ideology kuma midaysan waxay ku midaysan noo rabnaa dawladdu waa xoog dawladnimadu waa askar iyo ciidan waa system waa dhaqaale iyo cashuur iyo wax la ururinayo waa kayaan jira reerka kayaankaa qabsadaa wuxuu rabaa reeraha kale inuu dhulka la simo askarta helo ka hubbato hadduu isagu dhaqaale helo ka dhaqaalo bato hadduu jaamacada iyo meelaha inta carruurtiisa u diro xataa hadduu intaa ka simo waxay u arkayaan faankii in laga helay ila reernimadu waa faane anaa ka aabba fiicana ku maamuli jiray weeyaan haddii aan markayga ku maamuli kari waayo waa inaan maamulkaaga ridaa fakhrigii baan waayaya annaga ra'iisul wasaarana cidba wax ma siiyo reerkaba kama tirsana laakiin mujarrad inuu nin reer hebel yahay ayaa faankay ugu filan haddaan markaa faanka waayo waa inaan faankiina dumiyaa ama waa inaan markayga ra'iisul wasaare noqdo ama caynkan xal waxaynu ka dhigannay oo la yidhi bal muu dadkani qabiil ka teg waayo qabiil ha loogu qaybiyo qabiil miyuu ku qaybsamaysaa de qabiilku wuu sii jabay oo sii dumaya